runtii advice-ka aan siin lahaa aniga 20 jirkaygii waaga ahaa 20 years waxa uu noqonaya dabcan waqtigaada ka faa'iideyso laana waqtiga maanta haysataa waa waxa ugu qiimaha badan maanta ilaahay ku siiyay subxaanahu wa tacaala waa most macnaha precious product gacanta ku haysatid so time-ka maanta haysataa waa time aad qaali u ah تامكذا كعيارين لأن ذاتك بني يبتو حعاذو إن وقت جود يكون بحيان ملا أنو بهنين هذا نقطة فوتبول هذا نقطة سكشيكا هذا نقطة مددالو هذا نقطة وقت الرميس نوع سكر على نمبر 1 حلاي هاي وقت هذا كفى إذا سو أنت أود هذا نمبر 2 حلاي هاي سميسو صاحبه ونكسن لأن وحالي هذا قفك هدي شنت صاحب كوجو أفير سيد أديك أي لحقوا هدي أصحاب هذا لما أنتم أيهين ضد لهب الود ضد dad aan meel tiigsanayn adigana waxaad noqonaysaa qofka saddexeeye uun macnaha qofka waxaa noqonaysaa lixeeye uun oo wax badan macnaha ma dhaamaysid so waxaan leeyahay the circle aad ku jirtid macnaha saameyn weyn ayuu ku leeyahay mustaqbalkaada so iska fiiri circle-ka isaga inuu yahay mid nadiif ah oo wax badan aad ka faa'iidaysid midda kale waxaan leeyahay samayso ahdaaf iyo qorshooyin samayso dhalinyarta waqtigooda waxaa seejiya waxay tahay in aysan lahayn waxay tiigsanayaan so waxaad tigsataa barnaamijyo waaweyn waxaa samaysataa vision iyo dream aan leedahay waxaan u baahanahay haddaan noqdo 25 inaan waxaan sameeyo by the time aan noqdo 30 inaan intaa gaaro by the time 35 aan noqdo intaan sameeyo samayso macnaha qorshooyin aad u waaweyn oo aad tiigsanayso taa ayaa waxay keenaysaa in aad noqoto qof macnaha challenge nolosha la macnaha falqaadaya ama helaya horumar aad u weyn so ha noqon qof iska caadi ah mediocre waxa loo yaqaan qof iska caadi ah waxa noqoto qof aan caadi ahayn waxa noqoto qof macnaha degsaday qorshooyin aad iyo aad u waaweyn taas ayaa waxay keenaysaa dadka adiga asaagaada ah in wax badan aad macnaha aad dheeraato midda kale aan leeyahay waxay tahay wax akhri because the more waxaad akhrisid the more aad faa'iidaysid dadka qaarkood waxaa dib u dhiga waxay tahay in aysan akhrin macnaha buwaagtii in aysan dhagaysan macnaha podcastyadii in aysan ku dayan dadka maanta adduunka ugu waaweyn oo runtii aqoon ahaan iyo waxqabad ahaan iyo business ahaan ku talaabsada ama soo hooya gulo aad iyo aad u waaweyn so waxaan ku leeyahay maanta fursad waxaa haysataa dadka maskaxdooda in badan aad ka faa'iidaysan kartid so isku day in waqtigaada qayb badan oo ka mid ah aad maxaa lahdaa aad akhrinta aad siisid midda u dambaysa waxaan leeyahay noqo qof leh macnaha diin iyo value iyo culture because qofka waxaa lagu hagaa ama lagu miisaamaa ma aha kaliya horumarka adduunku ka sameeyey ba waa dhaqankiisa iyo diintiisa inuu qofka haysto waxaan ku ballan qaadayaa adigoo Yurub jooga ama America jooga ama meelo badan oo lamida jooga in aad guuleysan kartid adigoo diintaada iyo dhaqankaada haysta oo aad ka tagaynin iyo inaad familkaada aad always aad noqoto qof abaal leh dadkii wax ku soo qabtay waalidiintaadii ehelkaadii macallimiintaadii dhammaantood waana u noqotaa maxay qof thankful ah xadiiska nabiga wuxuu ahaa qofkan dadka uma hadnaqin ilaahay uma hadnaqo marka taa waxay tusaysaa in aad macnaha grateful aan noqotid inay muhiim ay tahay oo xitaa adiga laftaadii oo markaadii ay qayb weyn ka qaadanayso marka waan ka xumahay inaan aad u dheereeyay laakiin waxaan leeyahay boontiyada iyo qodobada hadda aan sheegay ayaa ugu muhiimsan oo aan siin lahaa qofka hadda 20 years da'diisu ay tahay ama la mid ah